السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu waa xasan maxamuud xasan, kusoo dhawaada janaalka geesi studio. maanta waxaan idin bari doonaa waxaa la dhaho taskbar. dadka koowaad taskbar ayaan idin bari doonaa. mida xigta waxaan idin bari doonaa waxaa la yiraahdo hadii uu ii sahlo waxaan idin bari doonaa waxaa la dhahay start menuga, taskbarka iyo maxaa la dhahay desktop. saddexdaas baan idin bari doonaa. start menuga muhiim inta badan maaha, laakiin waan idin barayaa taskbar iyo desktop. waxaan ku bilaabo marka start menu. start menu waxaa la dhahaa horta buttonkan oo ku qoran korkiisa start. markaad aado korkiisa maxaa ku qoran start ayaa ku qoran soo ma. start menu isaga ayaa la dhahaa. haddii aad rabto waxaad ka dooran kartaa keyboardka ayaad ka dooran kartaa. saan camal ayuu samaysan yahay ayaad taaban doontaa. waxa uu kusoo bixi doonaa applicationada inta badan, applicationada cusub ama inta hadda la isticmaalayo ama loo badan yahay. kadib applicationada ugu cusub markaad halkaan ay kale haddii tusaale ahaan aad application soo degsato ama software aad soo degsato, waxaad marka hore ka arki kartaa halkani haddii aysan ku imaanin desktopka. haddii kalena waxaad ka heli kartaa halkani. applicationada kulligood inta badankooda waxaad ka heli kartaa halkani. xaraf xaraf way alphabetical order a b c d ma jirto. haddii d jirto lahayd waxaan kusoo dari lahaa halkan ayaa d imaan lahayd. markaan fiirino kulligood xarfaha waa kulliga intaan ay leeyihin, laakiin xarfihii tusaale ahaan xarafkan camal software ma lahan. haddii laakiin software ka bilaabanayo d la heli lahaa, halkan cadaan ayay noqon lahayd. tusaale ahaan waxaan rabaa xarafka applicationkii wuxuu ka bilaabanaa tusaale ahaan s ayuu ka bilaabanaa. sta ayaan dooranayaa. waxaa ii soo baxaya applicationada sta ah waa setting, skype iyo solitaire. marka saddexdan application waxay ka bilaabdaan s. qaybtani waa qaybta applicationada lagu eego. haddii kalena waxaad ka heli kartaa applicationada inta badan loo isticmaal badan yahay halkan ayay kusoo kori doonaan. kuwani waxaa iskale microsoft. haddii rabta ha isticmaalin inta badan haddaadan isticmaalin xitaa halkan ayay ku saarnaan doonaan. qaybtani oo start ah waxaad ka heli kartaa accountiga ku samaysan oo ah accountigii aan kusoo galay halkani. waxaad kaloo ku heli kartaa documentiska, pictureska, settings iyo powerka. settinga waxaa ku jeeda setting ayuu ku geyn doonaa. documentskan documents ayuu ku geyn doonaa. pictureskana waxay ku geyn doonaa pictureska. settingana powerkana wuxuu ku jeedin doonaa meesha laga damiyo computerka. haddaad rabto tusaale ahaan restart halkan ayaa taaban doontaa. restart ayaa dooran doontaa. qaybtani waxay ahayd start menu. waxaa noo harsan marka taskbar. taskbar waxaa la dhahaa qaybtani oo hoostan ayaa la dhahaa. qaybta ugu dambeysa hoosta ayaa waxaa la dhahaa taskbar ayaa la dhahaa. taskbar qaybtani oo ah waxaa muhiimadeeda ah applicationada inta badan la isticmaalo ama applicationada aan hadda isticmaalayo ayaa waxaa ka arki karaa qaybtani hoose. tusaale ahaan applicationki midkani hadda ayuu ii furan yahay, midkani hadda ayuu furan yahay, midkani hadda ayuu ii furan yahay. laakiin tusaale ahaan midkani may furna. tusaale waxaan ka garan karaa calaamadani hoose ayaa saaran cadaanka ah. calaamadaas ayaan ku garanayaa. mararka qaar buluug weeye, mararka qaarna kalarkan weeye. haddii aad calaamad ku aragtid applicationka ama softwareka hoostiisa waxaad ku ogaan kartaa in applicationkaasi uu furan yahay. taskbarka applicationo kaliya ma ku tuso, wuxuu kale ku tusaa task view iyo waxaa kaloo ku tusaa search engine-ka. haddii aad tusaale ahaan mararka qaar midkani saan ma aha, wuu dheer yahay ilaa halkan ayuu gaari karaa. tusaale ahaan wuxuu samaysaan camal waxaa la dhahaa window search ayaa la dhahaa. haddii aad rabto inaad application raadiso tusaale ahaan application wuxuu ka bilaabdaa tusaale ahaan setting ayaa rabaa inaad raadiyo is ayaa taabtaa. assalaamu calaykum. وعليكم السلام. marka waxaan maraynay qaybta la dhaho maxaa la dhahay taskbarka ayaan maraynay. marka qaybtani waan soo baranay start menu midkii kowga ahaa ayuu ahaa oo ku tusinaya applicationada aad u isticmaal badan tahay. taskbarkana wuxuu ku tusaya applicationada hadda la isticmaalayo iyo applicationada aad ku bin garaysay ama mar hore computerka uu la imaaday.
waxaan kaloo halkan ku arki karnaa maxaa la dhahay internetka haddii uu ku xiran yahay haddii kale halkan ayaa ka ogaan kartaa oo daatada internetka ah iyo markaani oo meeshan oo meeting now-ga ah iconkan iyo codka meesha laga dheereeyo hadda 100 way haddana waan gaabin karaa haddana waan ku dheereyn karaa iyo waqtiga iyo saacada ayuu meeshan ka ogaan karaa qaybta kalena waa notification-ka baqshadaha haddii computerka oo baqshado ii soo diro halkani ayaan ka ogaan karaa marka intaas waaye maanta qeybaha kale wax kale ima dhimasaan rajaynayo iyo desktop kaliya desktop-kana waxa uu ku sugan yahay inta badan wuxuu leeyahay application-ada ayuu ku imaadaa oo ah this PC network circle pin iyo control panel aan idin sharxo marka intaan this PC-ga waa meesha computerkaaga aad ka gasho tusaale ahaan mobilkaaga wuxuu leeyahay my files application la dhaho my fileskiga camal weeye yacni wax walbo haddii video ayaa doorataa haddaad rabto music ayaa doorataa haddii cod ku jirto tusaale ahaan haddii aad rabto documents desktop maxaa la dhahayay windows iyo 3D objects midkaas wuxuu ahaa this PC-ga aan u imaano markaa network-ga wuxuu kutusayaa internetka haddii uu ku xiran yahay haddaad tusaale ahaan internet iyo laba computer haddaad isku xirtid ka isticmaaleysaa qaybtan kale waa recycle bin-ka waan isla yaqaanaa waa sidii mobilkaaga haddii wax tuusho haddaad tusaale ahaan sawirada aad tuuritid documents aad tuurto halkan ayay galaan ilaa aad ka deleedid oo aad meeshan ka tirtirtid control panel-kana waa sidii setting-ga camal setting-ga wuu ka duwan yahay laakiin aad iyo aad ayay iskugu dhow yihiin waa change setting and customize the functionality of your computer soo ma aragtid waa computerka oo ku sheegaya setting ayaa bedeli kartaa waxaad customize ku samayn kartaa mase edit gareyn kartaa shaqooyinka uu qabto computerkaaga marka intaas waxay ahaayeen saddexdii qaybood ayay ahaayeen